xadka dheer intaan dhoobanen cabka dheeraynay dhanka xeebta dhiish baan ku xidho baddaan dhex quusaye inta uu sargaal dhibiilahiyo dhuncasuhu joogo cadow kuguma soo dhici kare wuu dhabbarayaye dhabu seexo somalilan nabadii wadhay dhabu seexo somalilan nabadii wadhaye weeyi dhurbahante iyo reer sheekh isaxaaq oo weligood iyo allahood dad isdhalay oo isku nuuga oo isku marana oo 3 gobol sidaa u wada dega oo geeri mooyaane nolol cid kala kaxayn kartaa aanay jirin dadka doonaya in ay kala haleeyaan ilaahayna ka aqbali maayo ummaduna ka aqbali mayso shaqa qaran talaabadii horeen tobiyaha raacnay dhalinyaro technology taqantabiyo xilgaara oo u taagan somalilan tabagelinteeda military tayalebaanho mujiya taariikhi matawawacayne ee admigu wuu tartamayaye tooso oo dunida tiigsado muja tamartiina tacabiyo wax soo saar galoyan la tamashlay labad meel kasta aad naga daawanaysan halkan waxaan ku sugannahay magaalada Gabiley waxaana halkan igula sugan abwaankii weynaa ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsanaa abwaan Cabdi Siyaaro oo kamid ah abwaanada ugu qiimaha badan leh abwaanada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxa uu inta dheer yahay inuu kamid yahay ciidamada qaranka isla markaasina uu calaamad u yahay qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn looga yaqaano haddaba Cabdi Siyaaro oo fariimo kala duwan u diray ciidamada qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo walibana shacabka ka qaxay laascaanood ee reer Soomaaliland haddaba waxa uu soo diyaar gareeyay iyo waxa uu wado ayaan wax ka weydiin doonaa Cabdi Siyaaro awood mahadsan tahay marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mar labaadka taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Nuux Ismaaciil Taani iyo dhammaan ciidamada qaranka ee jiida hore ku jira gobolka Sool kaga jira difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu oo ah salaanta islaamka salaanka bacdi walaalayaal halkan waxaan ugu dirayaa fariin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambaliyo iyo boogaadin waan idin soo hambaliyeynaynaa waan idin soo ducaynaynaa waynu wada taaganahay waxaana difaacaysaan oo cadawga ku soo duulay ka difaacaysaan shisheeyaha iyo cadawga Soomaaliland ku soo duulay ee dibadda kaga soo duulay ayaad ka difaacaysaan horena laynogama guulaysan maantana laynaga guulaysan maayo hore laynogama guulaysan maantana laynaga guulaysan maayo insha Allah biidnillaahi kariim oo ciidanka alla yaqaanka waan ku kalsoonahay walaalayaal marka idinka waxba la idin tilmaami maayo laakiin waxaan idin sheegaynaa bulshadu hiil iyo hooba inay idin la garab taagan tahay ta kale waxaan hambaliyo u dirayaa oon leeyahay bulshada ku nool gobolka Sool kuwa maatida ah ee ka qaxay ee aanay Soomaaliland qixin ay walaalahood ahayd ee aanay Soomaaliland dadkoogii ay wada dhasheen anigu waxaan idin ogahay inta nin ee Cabdi Rabbi ku rooyahay maanta la gacala reer laascaanood ee ubadkoogii u tira beelay ay walaalayihiin iyo habkay ula nool yihiin cid iiga warrami mayso meel kasto oo ciidanka yagoori baa ciidanka qaranka ugu horeysay meel uu gaaro tukaraqina way ugu shisheysay inta gobonimadii dhaxmartay dadka shacbiga ah ee reer laascaanood iyo Soomaaliland xiiso iyo kalgacal aan weligood dhamaanaynin ayay isku qabeen oo ilaahayna og yahay ilaahayna marxaati ka yahay ummaduna ay ogtahay waxa weeyi beenta dadka Soomaaliland nacab ee shisheeyaha ah ee Soomaaliland horumarkeega iyo midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda waxa weeyi dhurbahante iyo reer sheekh isaxaaq oo weligood iyo allahood dad isdhalay oo isku nuuga oo isku marana oo 3 gobol sidaa u wada dega oo geeri mooyaane nolol cid kala kaxayn kartaa aanay jirin dadka doonaya in ay kala haleeyaan
إلهينا كأقبل مايو أمدنا كأقبل ميسو وان كحنهي أو والله وان كدم قنينا إن لا يراهد الله سبحانه وتعالى قحي أو سومالي لانقحسي وأرين عيبة وأرين مشكلة دي مشقة دي لكن سومالي waxay tiraahdaa dab munaafiq shiday ayuu muumin ku gubtaa odayaasha garaadada waxaan leeyahay garaadadayadiyow waxaad tihiin garaadadii Somaliland ilaa Ingiriiskii iyo ilaa Somaliland bilow iyo dhamaad kuwii hormoodka ka ahaa ee xuduudda u jeexay baad tihiin Somaliland walaalayaal maanta may dhalan dad kala maarmi karana ma yihiin Soomaalina hidaraac iyo haybsooc وعيب وإسلام كنا عيب كوا سومالي لما كنا كوا عيبا ما إلا حمر إلا كي جيس كأفريقي وده دقن طور غير بهالكي اللي دجي ودقي لكن أمتك استابا إنتي وده نشاني إنتي شارك يهين بي وحيي لن ولا نيسا نكتاد ديدا إيه حدودها أي سو جيس كأفريقي لي يهيديدا إذن كأقبل ميسو ونا سورة جلي ميسو وحوي waxaan leeyahay markaa ilaahay hay samiriyo iimaan saadiqahay naga siiyo dhan kastaba cidii ka dhimatay intaasi khasaare inoogu filan aqligeenu ha shaqeeyo aynu ku soo noqono walaalnimada midnimada mahuraanka dadka ehelka iyo abka aheen weligood kala maraynin ila ninkii kala kaxaynayana naartuu galaya waanu fashilmaya ka ummadda isku keena ajribu ilaahay agtiisa ka helaya waxaan ku idhi laas aanood horumarkeegii iyo maamul daadejinteedii degmooyinka ugu qurux badan ee Somaliland ee maamulkii maamul daadejinta gobolada loo daadejinayay dawladaha hoose waxay ahayd ta ugu horeysa tooblaynkeega waad aragteen dib u dhiskeegii waad arkayseen jaamacadeegii waad ogeydeen horumarkeedii waad ogeydeen dhakhtarkeega waa ogeydeen Somaliland intii ay tahay ay gaadhayso laas aanood heerkay marayso ilaahayna waa ka marxaati cidii aragtana waa ka marxaati marka waxa weeyi anigu maanta inaan fidma dhaliyo ugumaan tala gelin inaan cid u faano ugumaan tala gelin ilaahayna iguma oga waxaan ka damqanayaa cid kasta oo ay dhibi gaadho waxaan ka damqanayaa cid kasta oo islaama oo ummadda nabi maxameda oo masiibo gaadho ilaahay baan looga taag helaynin ilaahay baan ka magan gelaynaa waxaan leeyahay walaalayaal aynu caanada tooyba dabadood la qabay Soomaalidu tiraahdaa waxa kale oo Soomaalidu tiraahdaa sir laguma dhargo samir laguma hungoobo sadaqa reer ma biiso walaalayaal waxa la yiri oo kale dagaal sokeeye uu Soomaali saddex la mahmaha labada intaba wuxuu yiri dagaal sokeeye saddex baa laga dhaxlaa oday goblama agoon badata iyo uur ku taala dambe inay Soomaalidu ka qalin jabiso oo kaliya ayaa loo baahan yahay hadaba halkan gabayada waxaan ku yiri gabayada aan ugu tala galay qaybahooga badan difaaca qaranka ee ciidamada Soomaaliland bay ka waramayaan waxa kale oo ay ka waramayaan Somaliland horumarkeega iyo hiigsigeega himiladeeda wax soo saarkeega waxaad ogsoontihiin in ilaahay inoo balaqay macdantii oo shirkado badan oo macdan baadhiseed soo galeen wadankeena waxaad ogtihiin halkii biyaha laga raadinayay in shidaal ka soo burqanayo oo shidaalkii aynu la soo baxayno waxaad ogtihiin in takadii ugu weynayd ee geeska Afrika aynu u soo salaxnay oo Somaliland idinku ballan qaaday geeska Afrika ba inuu wax kala soo dego waxay Somaliland ku fikiraysaa bulshada horumartay ee caalamka dimuqraadiga ah xorriyada ku nool horumarka ku nool caruurtoodu ay heshay waxbarasho iyo caafimaad iyo isi iyo sharaf ee midhaha dalkooda ay ku filaadaan inay Somaliland ka qayb noqotay koow ka noqoto ayaanu rajaynaynaa waxa caqabadahan wadaana Somaliland horumarkeega dad dib u dhigayo oo ilaahayna ka aqbalaynin annaguna annaan ka aqbalaynin Somaliland way ku dalacdaa dagaalka iyo fidmada hadduu sii socdo waxa wallaahi oo billaahi waa maalin taariikh leh aqoonsigii Somaliland bay soo dadajinaysaa bal way idin arki doontaa wax aan la arki la fiirahaynin baa ka dhici doona meesha waxaasanu leenahay dagaal cidna waxba uma soo wado waxaanan ka baqaynaa oo leeyahay arrimayga magaranaysa oo sheegada sii wada
dagaal haddii uu dagaalku sii socdo fidmada ka socota Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaynu maqalay in Daacish iyo Al-Shabaab ay ku dagaalamayaan imika Puntland oo 4 maalmood oo shalay ugu dambeysay dagaal ka socday waxa loogu talagalay oo dagaalada loogu hoosaasinayaa in lagu faafiyo lagu fidiyo Geeska Afrika kooxaha nabadiidka ah ee hawiye imika xididada u soo saarayay dagaalka khawaarijta ay la galeen meel ay galaan markay waayeen ayaa la rabaa meel cusub oo waxaan ku wari silsiladii golis iyo badweynta inay madaxa la soo galaan haddaan laga hortagin oo Ethiopia iyo Igad Djibouti iyo caalamku aanay Somaliland la kaashan oo laga hortagin dagaalka oo la baqtinin waxaan bulshada caalamka leenahay waxa iman doonta masiibo aan loo maare helaynin oo siidkii argagixisada ayaa rag abaqaalaya waayo raggii argagixisada la dagaalamayay dagaal kala ku socda waana hubaal dhulkii dhiishka lagu hayay inay ku dhalayaan oo siidka lagu qotominayo dhakadeena waxaan leeyahay shacbiga Somaliland rag iyo dumar caruur iyo ciroole wada security baatiin wada nabad sugid baatiin meel kasta gobolada Somaliland dadka ku nool min awdal ilaa lawiya cadde iyo salil sool iyo sanaag iyo inta ka dhaxle qof walowba security-gaaga libin laab qof walowba amniga mas'uul ka noqo qof walowba qarankaaga difaac walaalayaal marka haddaan idin galo oo aan gabaygii idin galo gabaygani waxaad arki doontaan nuxurkiisa qaybta hore militariga Somaliland iyo dagaalka sida ay ugu xeel dheer yihiin ayay qaybta hore ka shaqeynaysaa qaybta kalena hadafka Somaliland horumarkeega iyo wax soo saarkeega iyo bulshada Somaliland iyo dawladeeda oo isku xidhan habkay u fikirayaan ama ay u maalgashanayaan dalkooga iyo dunida shisheeyaha sida Somaliland sida baalashu ay u soo maalgashanaysa ee nin waliba uu wax sii dhiganayo ayuu gabaygani ka warrami doonaa wuxuu yiri militarigan dhowrsoonidiyo dhaqamadow gaara militariga dhowrsoonidiyo dhaqamadow gaara madhaxagalo bulshadan dhaadan iyo shicib dhammaantiye madhaxagalo dhalaan iyo caruur suuqa dhalaqlayne madhaxagalo dhibaatiyo qabiil dhooqo iyo ceebe madhagaysto kuwa beenta dhuri dhawaaq afmishaare hadba kayn dhurwaa caraarayaan dharabka jiifnaay hadba kayn dhurwaa caraarayaan dharabka jiifnaay militarigan dhiidhiya intuu dhulka difaacayo inta uu dharaar iyo habeen dhaxanta mirayo xadka dheer intaan dhoobaneen cabka dheeraynay dhanka xeebta dhiish baan ku xidho baddaan dhex quusaye inta uu sargaal dhibiilahiyo dhuncasuhu joogo cadow kuguma soo dhici kare wuu dhabarayaye dhabu seexo Somaliland nabadii wadhay dhabu seexo Somaliland nabadii wadhay militarigan dhiirani markuu dhifu dirirayo dhimbiilahan rasaastiyo markaan dhamacada soo jeedno indhaxagalo dhufaysa cadow markaan ugu dhaceen dhabarka soo tuujo in ku dhilo tarays dhuxuuleen dhowda kaga saaro dhagtan dhiiga goortaanu daro dhoohanihi liitay kaan dhiman dhirtuu jeedhaya amuu isdhiibay dhaylawow dadkaygani dhamcayba wax dhuganayne nin waaliba dheeraad buu rabaa dhaciyo xaaraane isagoon isdhibin buu rabaa inuu waxa dhuuqaaye dhudhun iyo laxaadiyo ninkii mala dhididkiisa dhuunigoo xalaaliyo inuu dheef macaan helayo wa midaan dhammaanteen ogne wad dhutiyaysaane dhaqankii islaamkiyo xaqan dhinac maraynay hay-adahan la dhooldholiyo la dhinac roori dhowrtada haddii aan nacniyo sheeko dhalanteeda
dhalinyaro cilmiga soo dhammoodha ka fayow haysa dhulkan dihin hadday soo dhuraan nimco dhex eegagta hadday dhagaxan ciidiyo fahmaan dhammantiiyo luulka batan dhooran een cidii dhexgelin haddaynu soo dhuuxno markaan dhiganno kayd dhaxal galee dhudii lahanidu inay dunidu dhoof kuugu iman dhulko barwaaqaysan ka dhaadhici naftaadiyo qalbiga hayska dhigin weyd ka dhaadhici naftaadiyo qalbiga hayska dhigin weyde batan dhooran dheragiyo nimcade mawla dhigay kaydka kalluun dhala kalluun dhayla iyo kuman kaloo dheefle iyo kuman dheraado dhaxgaloo dhaqasho doonaya dhibi wolda kadaynoo dhistee afrikii dhuuqayso waxaa markab dhar iyo dhuuni sida amase maldhuufin dunidubaa dhankeenay dhabtii u soo dhaqaaqeene nin waaliba wuxuu sii dhigtuu soo dhuufanayay markaan dhiganno kayd dhaxal galee dhudii lahanidu inay dunidu dhoof kuugu iman dhulko barwaaqaysan ka dhaadhici naftaadiyo qalbiga hayska dhigin weyd dhacdhac iyo dhaliil iyo afxumo haddaan ka dheeranno dhaqaaliyo wax soo saar haddii dhammaanteen loo xayto dhaqaaliyo wax soo saar haddii dhammaanteen loo xayto dhisma qaran haddii loo guntado oon midnimo dhowro dhuumahan shidaalka ah haddii aan ka dhalaqsiino markaan dhiganno kayd dhaxal galee dhudii lahanidu inay dunidu dhoof kuugu iman dhulko barwaaqaysan ka dhaadhici naftaadiyo qalbiga hayska dhigin weyd ka dhaadhici naftaadiyo qalbiga hayska dhigin weyd waxaan ku xigsiinayaa gabay kale oo isagana la yidhaha tiigaal waxaynu ogsoonnahay dunidu wakhtigan teknolojiga ah halka ay marayso waad ogsoon tihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan halka ay marayaan iyo dhismahooga waxaynu ognahay adduunyadu halkay marayso iminka waxa fidmooyinkani ka dhacayaan horumarka somalilan waxay ku fikiraysaa military casriya oo la jaan qaada adduunyada casriga ah ee teknolojiyadda ku tartamaysa ee hubka kumbiyuutarka lagu ridayo ee qaaradaas kaga goosha sidii ay u heli lahayd mana aha somalilan hadafkeegu inay geeska afrika ama soomaali ay dhib u geysato ilaa xaashaa wajuud waxaanu doonaynaa horumar inay afrika ay ku dayato nabadgelyada somalilan horumarka somalilan taiwanta geeska afrika ayay somalilan noqonaysaa oo waa wadan badhaadhe iyo barwaaqo ilaahay dhigay nicmadiisii baa dhallinyaroy ilaahay afka soo kala hayso ood ogsoon tihiin walaalayaal kuwa dibadda jooga ee khiyaaliga ku nool ha dhegaysanina mustaqbalkiina waxaad arki doontaan tiyo somalilan baasaboorka loo soo qaato oo loo soo wada dhoofo oo sida khaliijka carabta iyo reer galbeedka ay noqoto khoorkii suways waxaana maxaa sabab u ah nabadgelyo ismaqal cilmi iyo tacliin ayaa soo maha waxa weeye gabaygan isagana aan idiin wado adduunyadan tiknoloji casriya adduunyadii tiknoloji casriya targadkiyo yoolka tartan baa hawadii loo galiyo tabiyo xeel dheere qayrkan cirkay taakiyaan wanay tusmaysteene tedhiisabankan waa lagaa tegiyo taangii iyo jiibe mar hore iska tuureen waxaan tiknikoo haynaye way tis qaaday somalilan qarankii waa taame tooso oo dunida tiigsado muja tamartiina tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashlayn tacaabiyo wax soo saar galo yan la tamashlaynin military tacliin iyo cilmi loo tababar soo qaatay rag tareerin adag soo maro turuqyo weyn yeeshay
tiriifayf xisaabtay misiyo tiro sagaalada hub kubyuutar lagu tuurayaa laysku tabiyay tedhiisabankan waa lagaa tegiyo taangi iyo jiibe toosa oo dunida tiigsadoo muuja tamartiinna tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashlayn shaqa qaran tallaabadii horeen tobiyaha raacnay dhalinyaro tiknoloji taqaan tabiyo xilgaara oo u taagan somalilan tabagelinteeda milatari tayalebaanahoo mujiya taariikhi matawaawacayne ee admigu wuu tartamayay toosa oo dunida tiigsado muja tamartiinna tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashlayn qoomkii aan toolfiiq lahayn tamar ma yeeshaane isku tiirsanaan iyo midnima lagu tisqaadaye waxaan tiigsanaynoo dhanbaan toosu helaynaye toosa oo dunida tiigsado muja tamartiinna tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashlayn markaa taga tolay iyo tusmiyo tahan gudihiinna markaa taga tolay iyo tusmiyo taha gudihiinna markaa taga tawaawaca jinkiyo tuhunkii shaydaanka martirtira takoor iyo iblaysi tuhunka shaydaanka rabbi toobadow celiya oo cuskada tawxiidka toosa oo dunida tiigsado muja tamartiinna tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashlayn ma tisqaadeen aadmigu haddaan laystixgelinayne ma tisqaadeen aadmigu haddaan laystixgelinayne tan faraaruqiyo tuuryadiyo tabcada shaydaanka tamootida walaalkii ninkii torrayu afaysta ee ku taagle kii talin lahaa toobadana seegi takoor iyo wuxuu taransadaa godob xunu talle toosa oo dunida tiigsadoo muja tamartiinna tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashleynin tacabiyo wax soo saar galo yan la tamashleynin cadow jaabeeyayo caalamka oo halgaame ciidan qaaraan miya dadaalay inkastooynu dadaalay oo aan xoraynay dalkeenna ilaahay daayinaha dawladdu ina siiyey geesiyaasha difaaca geesiyaasha aan daalin iyagoo isku duuban iyagoo addiyaar dunidu way aragtay ma cid bayna damcaysa hablaha deeqiyo luul dulmareeyi dhegayso ragga doorkani dhow darajooyinka qaatay sargaalkii dallacayo nin dirays xidhan mooye nin kaloo dalka joogaha ka qaadin dabuub dooqnayuu kugu beerin isgadiid hadalkiisa kaalayo ila duul kaalayo ila dalxiis kaalayo ila dawaaf daruurahaanu ku geyne nala daafaca dhulkeenna danta qaranka iyo dawladnimadayada waan difaacayna hoydhe danta qaranka iyo dawladnimadayada waan difaacayna danta qaranka iyo dawladnimadayada waan difaacay waa cabdisalaan maxamed bade bulsha t v قبلي واو اسبوعك في عين صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa